agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga bahda la socota agaasimo waaxeedyada la socda dhammaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag waxaan uga mahad celinaynaa booqashadooda iyagoo hawl shaqeyn ugu yimi sidoo kale bahda saxaafadana oo mahad celinayaa taliyayaasha ciidamada kala duwan dhammaantiin qof waliba teetalka uu leeyahay maayarkii iyo ku-xigeenkii dawladda hoose iyaguna inala jooga oo aanu iyagana saaka ka wada nimceeri gaabo aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa dhammaantiin si guud waxaanu isugu nimi mashruucan aad iyo aadka u tayada badan culayska soo noqnoqoshada aanu idinku soo noqnoqonayno mashaariic badan baa laga qabtaa goobaha ama gobolka ka socda culayskan aanu idinku soo noqnoqonaynaa waa faa'iidada mashruucan leeyahay weeye ee uu kaga duwan yahay mashaariicda kale waxaanu ka mahadnaqaynaa aragtida maanta aanu idinka aragnay iyo aragtidii aanu shalay idinka aragnay maalintii hore inay kala duwan tahay maalintii hore waxaynu ku jirnay xilli roobku yaraa laakiin istoodhadu aanay shaqaynayn oo maxaanku idhaahdaa aanay idiin ool calaf idiin ool maantase calaf baa idiin yaalla iyagoo karoobaa idiin yaallo geedihii waxbaa ka yaalla xagga cilmigiinni sidaa sheegteen wuu kordhay oo dee idinkaa tanba samaystay aqoon isweydaarsi ahaan iyo isku xidhnaanta ay isku xidhantihiin 10kiina goobood qayb bay ka tahay oo iyadana horumarkay qayb ka tahay waa ka mahad celinaynaa mashruucani wuxuu ahaa mashruuc toos ula taxalluqa nolosha dhabta ah ee deegaanka mashruuc toos ugu taxalluqu ahaa mashruuc loogu talagalay maadaama noloshu cycle tahay oo aynu bulsho ku noolnahay xoolaha nool oo dhaqda oo cuna oo hilibsada oo hilibkooda ka ganacsada aynu nahay in la tayeeyo oo laga baxo inay maxaanku iraadaa xooluhu noqdaan wax siisinaala ama ku xidhan biyaha roobka ah ee imanaya baa mashruucani uu u yahay maxaanku iraahdaa ka hortagu u yahay oo xoolihii ka dhigayaa inay sii joogaan ama sustainable ay ahaadaan oo ay maxaanku iraahdaa u noolaadaan si caadi ah sida dadku u nool yahay sababtoo ah dadka abaarta u dhintaa waa yartahay Soomaa dadka abaarta u dhimanaya waa tiro yar laakiin xoolaha abaarta inaga dhintaa intee leegiin a lot of Somaha sida laajigeed waxaan u baahanay wixii seef garayn lahaa sida dadkuba cunto u diyaarsado ee xilliga adag u dhigto inay maxaanku iraahdaa xoolahana xilliga adag loogu dhigo wixii ay ku noolaan lahaayeen xoogaa geedaaba imika in muuqda geedo walba aad dhiganaysaan store garaysanaysaan oo dhigaal idiin noqonaya waa inay rool noqdaan hadday iyagoo furan aad dhigtaan weydkuna wuu lumayaa maxaanku irahdaa dhaskuna wuu dhexgelayaa marka hadhow xitaa xoolii baa ku xanuunsan karaa taasi waa taa mashruuca iyo faa'iidadiisa maalintii hore inuu iska waraysanay badhadaha soo qiyaasoo mishiinadu way kala badhada duwan yihiin heer gobol ahaan annaga idinku ballan qaadnay tuulka 10 gooboodnabana waa siinaynaa laakiin intaanay go'in ka hor badhad walba soo cabira mishiinadu isku badhada maaha intaad soo cabirtaan iyadoo cabirkeedii leh badhadu iyadoo cabirkeedii leh noo keena taana taasaan ka odhanaynaa hay'adda FAO iyo mashruucan madaxdiisa oo China ah waxaan ka codsanaynaa oo anagoo wasaaradana aan uga horeynayna line ministerka wasaaradana u deynayna inay nala qabto oo agaasimaha guud ku tixgelinayna haddana mashruucan sustainability-giisa in extension loo helo muhiim bay gobolka oo dhan u tahay degmaday u tahay gobolka oo dhan baa sugaya inaynu ballaadhintiisii helnaa marka koowaad waa idinku waajibo waa idinka sugaynaa haddii ilaahay idmo iyadana waa codsigaygay ku jirtaa wasaarad ahaanna waana maqlayaan waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa inta aad noo qabateen waxaanu 100% uga mahadnaqaynaa inta aad noo qabateen reer Laanqiciye reer Booca reer Ceelamaan reer Dagaareed mashruucan gobolka oo dhan baa doonaya maalintii horena waa idin sheegay ilaahay baa idin qadaray inay idinka aan nasiib u yeelataan dadaal badanna waxa u galay Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax waa u ogaanaysaan waa ku tixgelinaysaan intaas waa inta ugu dambeyn fariinta aan u dirayno bulsho ahaan iyo community ahaan waxa weeye
waxaa halkan ka sheegteen inaa xeerar samaysateen bulshada khilaaf waa imanaya shuruuc baa qorateen shuruucda nuquladii baa noo keenaysaan haddii ilaahaydmo xafiiska maayarka keenaysaan xafiiska gobolkana nuqul baa keenaysaan haddii ilaahaydmo si markay isqabad yimaado laydinku hago oo aanu idinku hayno haddii ilaahaydmo waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa ugu dambeynta inaanu maanta mashruucan soo gabagabaynay kala wareegnay wax bisil dad xirfad leh iyo qalab quality leh iyo barodhigi laftiisa oo qayb ka mid in hortaalo intaaba inaan fow kala wareegnay maragna waa ka nahay waana uga mahadnaqaynaa